بسم الله الرحمن الرحيم سؤال وادا وبلال مصطفى طاهر وحقا يديك سو دين جري waxa weeyaan filimaan taxanaa waxa weeye waanooyina qaybteeda youtube-ka iyo dhinacan waxa weeyaan page-ka weyne GYL magacaygu waa Bilaal Mustafa Daahir marka hore waxaanu ku bilaabanaynaa sida caadayna waxa weeyaan quraanka kariimka waxaan leeyahay aad baa idin salaamaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سود هذا إلهي سبحانه وتعالى ما هذا الكلام ما أنت واحد نكهل لنا موضوع مربى واحد علماء واحد هم مربى واحد لقى هذا واقع تاجن موضوع نكهل لنا واحد ويان ويوتيوب aynu maanta ka hadlaynaa runtii youtube-ku dad fiican oo badan oo si wanaagsan u isticmaalaan way jiraan intii si khaldan u isticmaashaana runtii iyaguna waa jiraan oo dee kuwaa sida khaldan u isticmaalayana iyagaa waxa weeyaan iyagaa isdhibaya cidna ma dhibayaan amiga anigu social media waxaan bilaabay 2014 haddaan rabo caawa youtube-kayga inuu 100 gaaro waxa weeyaan biyaygala fudud waa anigoo aflagaadooda waa anigoo waxa weeyaan karaamada amba cumaamada ay saaran iska tuura haddana imika haddaan ku idhaahay 2019 baan samaystay youtube wuxuu ii marayaa malaha 1900 buu ii marayaa haddana intaas iskaga qanacsanahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaana kama raadiyo lacagta ugu yara laga helaana waxa weeyaan waa 7 baan malaynayaa haddaad waxaa wax ku raadiso waxaa baratana waxa kaa tegayso waa karaamada iyo sharafta wax allaaliyo waxaad cizeynaysa wax allaaliyo waxaad waxa weeyaan aad sharfaysaa ma jirto sida in badan aynu indhaheenu daawano ummaddan maxay isku eryanaysaa maxaa qofkan u eryanaya maxaa qofkan cawradiisa u eryanaya maxaa adduunyada arkayso waxa weeyaan dadkan youtube-bada isticmaalaan ba youtuberiska maxay u soo qaadan waayeen waxa weeye dumarkooda qaaqaawan waxaanay soo dhigayaan bay ka qanacsanyihiin waxbay la yimaadeenay sameeyeen waxaasay ku meel mareen adduunkana haddaad aragto qof dumaroo qaawan amba qof waxa weeyaan xadka bax waa dad ku shaqaysta sida gaaladoo kale way wada sharciyeysan yihiin naagta xumaanta samaynaysa ka xumaanta amba sida waxa weeyaan aan goolla waxa weeye galmada aan dee waxa weeyaan xalaash ahayn waxa weeyaan Yurub laga sameeyo waa sharciyeysan inta jeer tusaalaha naagta loo galmooday waxaanay ku shaqaysato marka keliya ta hawsha bilowda cashuur baa ku haysa bal kuweena eeg youtube-ka samaystay aan cashuurna ka go'ayn iyagoo daaqadaha wada saarsaaray la ku dhagax ku talax tagi meynay iyagoo daaqadaha wada saarsaaran youtube-kiyo meel walba buuxaya waa dhibaatooyinka keenta haddii rasuqu meelaha kaa galo waxa weeyaan waa xanuun markaa mawduucu wuxuu ku saabsanyay waa barnaamijkaas waxaynu u baahannahay markaa balbaata u fiirso haddaad aragta gabadh soomaaliyeed oo nin gaala guursatay ama nin caddaana aakhirka see u soo socoto waxay ku soo noqonaysaa soomaali bay ku dambaynaysaa nin hadduu naag caddaana guursado maanta oo waxa weeyaan ajnabiya siduu u soo socdo wuxuu ku soo noqonayaa soomaalida maxaad tirahdaa lama huraan waa caws jiilaan weeye sooma lama huraan waa xaggan marka waxaan ugala socdaa oon bartaasoo aan waxaasoo dhan u soo maraya haddaynu rabno youtube-ka inaynu u isticmaalno si fiican oo dee dad baa waxa weeyaan ay shaqadooda tahay maasha allah rag baa ku shaqaysta rag baa ay noqotay waxa weeyaan amba dad rag iyo dumarba maanta dad bay noqotay inay waxa weeyaan bariiska kala soo baxaan markaad bariiskaad kala soo baxaysaan te waxa weeyaan waxaa jira siyaabo fara badan oo waxa weeyaan wala soo bixi kartaan baa jira
adoon qofna qaawin, qofna caayin, qofna aan waxba ku samayn ayaa laga yaabaa waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala kuu barakeeyo oo meel fiican ay wax ku maraan. taa waxaa ka sii daran nin walboo youtuberis aba qof kastoo youtuber isticmaasho dumara waxay leeyihiin kooxo oo waxa weeyaan dee nin walba waxa weeyaan dee wuxuu haystaa waxa weeyaan jameecu haystaa, jameecadii baa wixii u camiraysaa kadibna waa ha biqlayso waagii daayir cali wasoowe waa istaba yaacdo. markaan waxaan ugala socdaa ma diidani oo tusaale ahaan dadyowga youtuberiskaana kamana xumi macaaridna kuma yihi, laakiin waxa wanaagsan marba waxa taagan in laga hadlo, in laga daayo birmageyada, in laga daayo waxyaalaha waxa weeyaan sumcadnimadeena iyo soomaalinimadeena iyo gobonimadeena iyo sharafteena hoos u dhigaya in laga daayo. inaad isticmaashaan, inaad reaction bixisaan, inaad wax kasta samaysaan waa muhiim. oo youtube badan oo ku xidhannahay baa jira, youtube badan oo waxa weeyaan aanu marka saa imika telefoonkayaga aanu u furno youtube-ka galno amba anagoon gelinba noo soo wada dhacayaa jira oo waxa weeyaan maasha allaaya waad garanteen baan u malaynaya. waan inta fiican waanu ka dhegaysanaa, qaar xataa waxyaalaha xun soo dhigaa laga yaaba maalintii wax fiican soo geliyaan inaanu daawanno oo aanu booqanno. marka waxaa jira soomaalidu maasha allah dadka fiican amba dadka aan social mediaha ku badnayn baa badan, inta badan inta aan social media ku xidhnayn iyo inta social mediaha waxa weeyaan isticmaashaa, inta waxa badan aan isticmaalin social media, inta ku xidhanna way badantay. dad badan baa laga yaabaa inta aan isticmaalin oo dhan social media ku xidhayn oo lagu daawanayaa oo dee qof walba isagoo amba guri ha jooga amba shaqa ha jooga amba meel kale ha jooga amba dalka ha jooga ku daawanaya. marka maadaama lagu daawanayo oo tahay nin youtuberisa amba qof social tahay waa inaad markaa is ilaalisaa, waayo waxbaad soo gudbinaysaa, waxbaad keenaysaa, waxbaad la imanaysaa, waxbaad ummaddii tusaysaa. maasha allah waxa weeyaan markaa waa inaad dadka u keentaa waxa weeyaan wax qormaya, dadka jaaniska u yeeshay ee waxa weeyaan bartaa soo fadhiisanaya ee derisaya. marka anigoo kale laga yaabaa dhowrkii bilood mar inaan soo fadhiisto amba video soo geliyo youtube-kayga xataa kuma badnin, waayo howlaha kalaa iska badan. haddana dee wixii markaad aragto wixii maanta haddaad aragto waxa weeyaan waxbaa dee qof walba damiir buu leeyahy, qof walba meel buu wax ka eegayaa. markaad aragto waxa weeyaan hawsha u socoto waa lagugu soo jeesanaya. maanta youtube-kayga hadduu waxa weeyaan ragga qaar bartuu gaadhay hadduu gaadho caawada idila hadlaya waa laigu soo jeesanaya, hadda anaan waxba aan kaba hadal baa laga yaabaa waa laisku soo jeesanaya. waayo dadku waxay aaminsan yihiin qofkuba youtube-kiisa hadduu bartaa gaadho hayaay baashii buu dhamiyey, baashii hadduu dhamiyo baashii qaatana waxa weeyaan dharbaaxadiisii baa soconaysa qofkii, qof la deynaya male. marka waxaan u sheegayaa saxaabta youtube-ka isticmaasha ee waxa weeyaan jaanis u yeelato hawshan wadda, waxna ka dheefo waxna ka soo gala waxa weeyaan dabciya. maasha allah rag badan oo aanu magacyadooda haddaan imika dee sheego dad badan baan ka tegayaa. marka inaanan magacyadooda sheegin ba ii khayr badanoo dadka youtuberka u isticmaalo dhan waxay wada gaaraysaa qof kastoo youtuber leh rag iyo dumarba si fiican bad hawsha u wataan. laakiin sumcadnimadeena iyo soomaalinimadeena iyo gobonimadeena haynu ilaalino, waayo waxaa taa laga yaabaa haddaad maanta aabba ahayn beri baad noqonaysaa, haddaad sodog ahayn beri baad noqonaysaa. laga yaabaa waxa weye inay ku daawadayaan rag aad wax ka qabto seediyaal kuwa iyo sodoga iyo sodohda. dadkaa waa dadkii la qadarin karay, la xishmayn jiray. in waalidkaaga ku daawanayo oo hooyada iyo dadkiin iyo familigaaga iyo awlaadaada ku daawanayso waa inaad waxyaalaha qaar koor iskaga qaadaa. mar haddayna waxa weeyaan wax markan keenayo oo dee kaa hadlin oo waxa weeyaan cididigaaga iyo sharaftaadii mar haddaan mar qofku bilaadanku waa khaldami karaa, waa talax tegi karaa oo taa xaq baad u leedahay oo gar baad u leedahay. mar haddayna noocaasi jirin waa inaad waxa weeyaan waxyaalaha qaar kor aad iskaga qaataa. marka waa inaad nafistaa, marka waa inaad waxa weeyaan taa waa caadi ma garatay. marka waxaan ugala socdaa waan videogeera kooban usoo diray usoo duubay maadaama anigu dee barnaamijyada caadigaa ka hadla dad videoyada wada booqataan ood waxa weeyaan youtube-kayga xataa yar fiirisaan waxyaalahan ka hadla iyo inaad dadkayga tusaale ahaan anigu social media waxba ka soo gelayay baan albaab baan ka soo galayo albaabkaasoo howlo badnaa oo dee aan islahaa waxa weeyaan
adduunyadan dee ninka raggi waxbuu bedelaa keelaayo suuratu samaata buruuj ukhduud lagu sheegayey waxa weeyaan qoom dhan bedelay inan yar buu ahaa marna ka raayiibka wax ka soo baranay marna ka kala wadaadka wax ka soo baranayay uu boqorku marba meel u dirayey markii keelaa la dili kari waayey mar doon la saaro mar buur la saaro markii dambe waa kii ma doonaysa inaad disho isagoo boqorku ka baqaya inay ka yari diintan wada u faafiyo dadku ay ka wada jeedsadaan ayuu ku dhaha geedka adigu xidho waxaad tiraahdaa leebna soo qaado waxaad tiraahdaa bismillaahi rabbi qulaan intii buu yiriyo markaasuu ka yaraa ku dhuftay markaasay dadkoo dhan isku wadeed buu ka yidhi dadkii marka la isku weedhay dadkii markuu ka yaraa leebka ku dhacay bay yidhahdeen aamanaa rabbi qulaan annaguna waxaan aaminay rabbiga kan yar marka waxaan ugala socdaa qofka bila'aadankii hadduu wax gudbinayo amba uu doonayo inuu wax bedelo wax uu bedeli karaa haddaynu soomaalinahay maasha allah maskaxdeena kartideena weliba xitaa waxaan dad magaca jecel dad sharaf jecel dad dulmiga neceb baan nahay dad dhibka neceb baan nahay dad karaamadaynu nahay ma garatay marka waxaan ugala socdaa uun war waxa doontaba wado haddaad doonto xataa qabiilkaaga wado laakiin waa inaad ku dartaa edab iyo akhlaaq waa inaad ku dartaa aday kuu fiican tahay aakhiradaday kuu fiican tahay waayo qofka bini'aadankii inagaaba iska dembiye badanba waa intaa dembiye iyo dhib iyo rafaad iyo waxbaa inaga dhacaya intaas ayaa waxa weeyaan ugu daranba marka xaqiiqadu waxay tahay uun inaynu waxa weeyaan isla garanno xaqu wuxuu yahay intaasunbay iga tahay runtii assalaamu calaykum waraxmatullaahi walbarakaatu aad baa idin salaamaya meel kastood adduunyada ka joogtaan annagoo xagga ayaa idiga soo salaamayna waxa weeyaan baastada assalaamu calaykum